Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada sumdbro.com ee laga barto cilmiga kombiyuutarka. Waxaan kusoo jirnay duruusteena taxanaheed oon ku baranaynay video editing ama hagaajinta fiidiyoyaasha qaybta Sony Vegas. Darsigeena maanta waxaan ku qaadan doonaa qaybtii labaad maxaa la raahdaa wax ka bedelida settingka Sony Vegas. Darsigeena maanta marka waxaan ku qaadan doonaa qaabka wax looga bedelo qaybtii labaad iyo qaabka loo sameeyo workspace cusub qaabka loo abuuro ayaan isla baran doonaa. Okay, waxaan hadda marka sameyn doonaa in dhammaan settingkan maxaa la raahdaa dhammaan marka waxaan wada xirxiri doonaa panelskan dhan marka waa wada xirxiri doonaa. Marka waxa ugu horeeya marka sameynayna waxay tahay panelskan dhan waxaan u baahanahay inaan iska wada xirno, uma baahnin meesha ay igu buuxinayaan. So marka waxaan rabaa in dhammaantood mid aan u wada xiro. So marka waxaan sameynaa marka waxay tahay calaamadan close ay ku qoran tahay ama calaamada istilaafka ayaan ku dhufanayaa kii koobaad uu xirma hadda. So kala qaybtan ayadana waan xirayaa, video preview-ga asigana waan xirayaa, project notice-ka waan xirayaa. Dhammaan marka waxaan dhan waan wada xirxirayaa. Waxaan rabaa inaad ila aragtid qaabka dhowdi hadii waxaan dhan ay kaaga xirmaan oo kala ama gacanta ay kaaga dhacdo kala qaabkaad u soo kacsan lahayd. Hadda marka waxaan haystaa waxay tahay timeline-ki oo kaliya igu soo haray. qaybta markii way baxdo oo panelska qaybtii kor oo dhan oo window dog-ga dhan way ga baxday. So marka sidaan oo kale haday kugu dhacdo maxaad sameyn karaysaa, maxaad qabanaysaa? See marka xal ayaa loo baahan yahay. So marka xalka marka wuxuu ku jiraa waxay tahay waxaan imaanaynaa qaybtay ku qoran tahay view, kadibna waxaan ka dooranaynaa window ayaan ka dooranaynaa. Hadda mid ayaan usoo kicinaynaa marka. Mixer marka waa kana, mixer bus waa kana oo kii codka lagu dheereynayo lagu gaabinayo waa kana. Kii koowaad hadda waan soo kicinay. Sidoo kale waxaan soo kicinaynaa view ayaan leenahay, window ayaan soo furayaa, kadibna waxaan ka soo dooranayaa video preview-gi. Asigana waa kana booskiisa ayuu tagay, meeshiisa ayuu igu furmay. Sidoo kale waxaan leeyahay view window ayaan ka dooranayaa, kadibna waxaan leeyahay sidoo kale waxaad ii soo furisaa project media ii soo kici. project media asina booskiisa ayuu tagay. Inkastoo maxaa la raahdaa master bus-ka asigana booskiisa uusan joogin oo dhex galay project media qaybaheeda safkeeda inuu galay. ayadana waan ka soo saari doonaa wax dhib lama nahan. Video preview ayaan imaanaynaa sidoo kale window ayaan ka dooranaynaa. Video effects, transition sidoo kale sidoo kale media generator ayadana way maqan tahay soo kici. Okay, wixii dhamaan marka hadda way ii soo wada kaceen. Okay, media bus-kan marka waxaan u baahanahay asigana booskiisa inaan geeyo. booskiisa marka seen ku geenayaa waxaan sameynaa marka waxay tahay waan soo jiidayaa waa ujeedaa booski dhan oo ka soo baxay goonidiisa buu istaagay. So marka waxaan sameynaa marka waxay tahay wuxuu ku leeyahay waxaad qabataa alt qaba maxaa la raahdaa dog window-ga alt qaba buu ku leeyahay si aad u geysid booska rabtid. alt marka waxaan qabanayaa control ayaan qabanayaa, kadibna waan wadaa ujeedaa amalanaa hadda marka wuxuu la koray wuxuu ku qabsaday booska maxaa la raahdaa uu joogay video preview-ga. uma baahna marka geeskan kale ayaan keenayaa, geeskan kale ayaan imaanayaa, halkaas ayaan ku sii daynayaa. Okay, waa ujeedaa amalanaa marka asigana booskiisa ayaan geenay, booskiisa ayuu hadda joogaa. Sidoo kale waxaad sameyn karaysaa tusaale hadda qaybtan video preview-gu ugu yar yahay waxa weyn qaybtan kale ee maxaa la raahdaa media generator-ka iyo transitionist-ka iyo project media qaybtan ayaa weyn. Marka waxaan rabaa qaybtan kale ayadana inaan weyneeyo oo maxaa la raahdaa video preview ayadana inaan weyneeyo baahanahay. So marka ayadana caadi waxaan sameynaa marka waxay tahay waxaan imaanayaa xariiqadan ayaan dul imaanayaa. xariiqada markaan imaado filaarta markay qaabkaas isku bedesho ayaa waxaan qabanayaa click ayaan siinayaa, waan soo jiidayaa, sidan ayaan u soo jiidayaa. waa ujeedaa amalanaa wuu soo weynaaday. soo kale qaybtan kale ayadana saan ayaan u soo jiidayaa. Okay, marka qaab noocan ayaad marka u sameyn karaysaa. haddii markuu kaa xirmo kala qaab noocan ay soo kicin karaysaa. soo kale media generator ayaa ugu horeeya, transition ayaa ku xiga, video effects ayaa ku xiga, project media igu horeeyana oo ugu dambeeya. So marka see u xalin karaa ciladan oo kale waxaan rabaa asiga inaan ugu hormarsiiyo video project media asiga inaan ugu hormarsiiyo aan rabaa. waxaan sameynaa marka waxay tahay waxaan qabanayaa click ayaan qabanayaa, kadibna waan jiidayaa, caadi ayaan u jiidayaa. oo ujeedaa malaynayaa wuxuu ka hormaray hadda transition iyo video effects uu ka hormaray. waan sii jiidayaa media generator-ka hadda waan ka hormaray, halkaas ayaan ku sii daynayaa. Okay, qaab noocaas marka ayadana u sii maxaa la raahdaa haddii ay ka xirmaan oo kale u soo wada kicin karaysaa. haddii marka sidaan oo kale ay kaaga xirmaan oo kale wixii dhamaay sidaan oo kale ay kugu dhacdo kale intaad maxaa la raahdaa mid cusub sameyn lahayd oo
view inta dhahdid Windows aad ka dooran lahayd mid aad usoo gali lahayd waxaad samayn karaysaa haddii workspace-kii uu kuu soo gareysan yahay workspace adiga aad leedahay workspace-kaas ayaad isticmaali karaysaa. So marka wixii dhammaay hadday kaa wada xirmaan oo kale maxaan sameeyaa wixii dhammaay way iga wada xirmeen workspace moosan ay saf gareysan kii default-iga lagu keenay ayaad isticmaali karaysaa. intii maxaa la yiraahdaa aad ma lahayd view Windows aad ka dooran lahayd mid aad usoo dooran lahayd oo custom waa hadda kan marka mid usoo dooranaysid waa custom adiga goonidaada dooqaada mid kaartidaad soo baxsanaysa mid kaartidaad dooranaysa waa samayn karaysaa. Soo kale waxaad samayn karaysaa window layout-ka intaan imaadid kadibna aad ka dooratid maxaa la yiraahdaa default layout kaliya ayaad ku siinaysaa. waxaa ujeedaa markaad waxay tahay default layout sidiisii hore uu soo kacay. Soo kale waxaad isticmaali karaysaa shortcut-ka ah alt dd da loo maray taabanaysaa bal waan isla fiirinaynaa ayadana shortcut-kaas waan isla fiirinaynaa. waxaan marka close ayaan leeyahay mar kale close ayaan leeyahay waxaan dhan okay waa ujeedaa maleenaya. So marka waxaan leeyahay alt dd loo maray ayaan taabanaya waa ujeedaa maleenaya uu ii soo kacay kan laakiin waa default ma samaysan karaa ani mid custom ah oo ani ii qaasa ani ii gooniya ma samaysan karaa waa samaysan karaysaa. tusaale ahaan qaybtan transitionska waxaan u baahanahay waan ka soo dhex saaray hadda qaybtan waxaan u baahanahay waxaan qabanayaa control ayaan qabanayaa inta ayaan rabaa inaan dhigto okay waad dhigan karaysaa waa ujeedaa maleenaya kan xoogaa yarsan usoo jiido waa ujeedaa maleenaya wixii maxaa la yiraahdaa transition inta ayaad ka arki karaysaa. soo kale media project-ka asina qaybtiisa meeshiisa ayuu ku yaalaa kanna waxa ku qoran kanna waa maxaa la yiraahdaa waa panel kale wuxuu ku yaalaa asigana qaybtan ayuu ku yaalaa waxaana la yiraahdaa transition ayaa la yiraahdaa waxa kugu jira transition iskidan ayaa kugu jira hadaaridna waa weynaysan karaysaa hadaaridna waan soo yareyn karaysaa intaas oo kale ayaan ka dhiganayaa laakiin aniga explorer-ka waa kana qaybtiisa ayuu ku yaalaa video effect-iga waa kana asina meeshan ayuu ku yaalaa media generator-ka asigana waa kana qaybteeda ayay ku taalaa. soo marka saan hadda waan save garan karaynaa hadda workspace cusub oo anaga hadda aan samaysanay waa hadda kan kii hore ma ahan hadda rabno media bus-kan asigana waxaa leenahay naga xirma waa u baahan ba asigana qaybtaana sidiis saan wax yar igu soo yaray ayaan leeyahay sideedii hore ayaan ku celinayaa. okay hadda marka qaybtan waa preview-gi qaybtan waxa yaalo transitionski qaybtan waxa yaalo media project-ga iyo effect-ga iyo waxa yaalo media generator-ka iyo explorer-ka wixii dhamaan inta ay wadaalaan geeskan ay wada yaalaan qaybtan waxa yaalo transitionski qaybtan waa preview-gi. saan hadda waa mid custom ma ahan sida default-ga uu ku yimaado wax baan ka bedelnay saan hadda waa ku save gareysan kareena waxa dhahaynaa view meesha ku qoran tahay imaanayna kadibna waxaan ka dooranaa Windows layout kadibna waxaan leenahay save layout as kaliya ayaan ku siinaynaa. soo marka waxaan leenahay waxa inoogu qortaa magaca Summit Pro noogu qoraya leenahay qaybtan wuxuu ku leeyahay shortcut-ka 0 maad ka dooranaysaa 0 number 1 baa ka dooranaysaa number 2 3 4 5 intaana ma wada empty way wada maran yihiin wax ku jira ma lahan wax maxaa la yiraahdaa workspace oo ku saf gareysan ma jiro camera kale taa inaan ku saf gareey ana marka 0 ga ayaan ku saf gareysanahay waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay kadibna yes ayaan leeyahay. okay hadda marka waxa ii saf gareysan workspace la yiraahdo Summit Pro ayaa ii saf gareysan marka waxaan dhan hadda iga wada xirmeen tusaale bal fiiri waan wada xirxirayaa wali waxaan rabaa inaan ila fahamtid ayagana waan xirayaa okay wax dhama hadda waan wada xirxiray waxaan haystaa timeline-ki oo kaliya aan haystaa. soo marka waxaan ka dooranayaa view ayaan imaanayaa waxaan ka dooranayaa Windows layout waa kana marka Summit Pro waa kana kaliya hadaan ku siiyo waxa ujeedaa inuu ii soo kacay workspace la yiraahdo Summit Pro kan hadda custom-ka aniga aan ku sameystay waa haddii aan imaado view aan dhaho Windows layout default-gii horeeto oo maxaa la yiraahdaa lagu keeno computer-kana waan ku soo laaban karayaa view aan imaanayaa waxaan leeyahay window layout-ka ayaan imaanayaa waxaan rabaa inaan ogaado maxaa la yiraahdaa workspace-kayga ay ku qoran tahay Summit Pro waxaan ku soo gali karo shortcut-ka ku soo gali karo marka waxa waaye shortcut-kayga alt plus d plus 0 alt plus d 0 waaye marka waxaan leeyahay alt plus d 0 ayaan leeyahay hal mar ayaan isla qabanaya marka alt plus d 0 oo ujeedaa oo maleynaya haddii aan qabtana alt dd haddaan dhahana waa ujeedaa kii hore ee ii soo kacay alt d 0 haddaan ku dhuftana waa ujeedaa
waxaa isoo kacay kii customka ahay ee ku qornayd magaca la yiraahdo Summit Pro oo ku qornaay ee aniga aan save gareystay oo maxaa la yiraahdaa customka ahay waa hadda kan. marka qaab noocan ah ayaa loo sameeyaa workspace. sidoo kale hadday kaaga xirmaan oo kale waa workspace hadee maxaa la yiraahdaa ka xirmaan oo kale baana la iskaran qaab noocaas ayaa loo soo kiciyaa. waxaan rajeynaynaa fahamteen. waxaan u ballan darsiga xiga waxaan idinkaga tagay asaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.